gabar kasta inay sireen ninka ka dhaxqaylay waxa arkaysaa nin dhan oo boqolaal naaga dhexda uga jira gabadhii maradeedii ku dhagan yihiin jinniga gabar ka hadlay markaasuu yiri wariya bax asur bixi ma asoo ka juqjuqay tunka iyo kaliya ma ku jiro wari jinka xagee ku jirtaa yiri farjigan ku jiraa gabadha farjigeeda haddaad imaan kartid halkaasaan kuu fadhiyaa marka xadiiskani waa xadiis u baahan dadka Soomaaliyeed in markaas loogu sheego xadiithul jucliya leeyahay waa xadiithul ruqya laakiin ayadana waxa baraarujin rabta waliba baraarujin weyn rabta waayahan dambe waxa soo baxay dad ruqyadii iyo cilaajkii si kale u bedelay oo hada waadix ah way xarumay fureen xarumaha markay fureen dadkii waxay leeyihiin waa idin cilaajinayna quraana in kutufayna dadkii marka maadaama dadka Soomaaliyeed ayna jirro badan yihiin ayna diin jecel yihiin dadku waa iska buuxiyeen marka fiirisidna waxa u badan dumarka laana dumarka waxa u badan khiyaanada iyo fitanta iyo hagardaamada gabar kasta inay sireen ninka ka dhaxqaylay hadday ina noqoto waxa la hebel waa ilmaha inay xataa wala ishi waa laga kari laay dadkii marka diinkii iyana ma rabaan maanta dhan dhakhtar laga lagu daboreega qof cuni waay oo jiran oo ilhayd ma dhakhtar ma ilu daaweyn kara computer kasta saar meel arki kartaa marka nimankii ayaga ahaa dad way jiraan kulleeyba iska wanaagsan laakiin waxa lagu arkay nidaamkii ruqyada sharciga ahayd way khilaafeen oo wax lagu daaweynayo waxa la rabaa inay noqdaan adkaartii nabawiyada sallallahu alayhi wasallam iyo aayaadkii quraanka ayadoo la maraayo nidaamka shariicada la maraayo waxa arkaysaa nin dhan oo boqolaal naaga dhexda uga jira qaarkood waxa laga yaabaa inay gacanta ku qabaayaan gabadhii maradeedii ku dhagan yihiin hadda ka hor waxa la soo daayay nin dadka marka dadka wax quraan saarayna dadayna dad ahli diin u yihiin waa muhiim nina jinniguna waa ku fasaadina adiga jinniga qofkan galayo ku fasaadina jinniga gabar ka hadlay markaasuu yiri wariya bax asur bixi ma asoo ka juqjuqay tunka iyo kaliya ma ku jiro wari jinka xagee ku jirtaa yiri farjigan ku jiraa gabadha farjigeeda haddaad imaan kartid halkaasaan kuu fadhiyaa markaasuu gacantii gumaarka kaga reexay bax wariya mar hore jinniga bax gabadha xala sheekh xaa ifartay xaka qaldan sheekho dhawaatii jirtay kamid ninkaas ma ilaaha daawo ka aqbalay marka gabadha ajnabi jirkeeda iska fartay naam ka aqbalay kaas loo geysan karaa ma lagu aamini karaa xataa gabar ma lagu aamini karaa xataa dayib waxa kale jira run sheeg waa ceeb sheega leeyri waxa uu aqrinaayo waa isku day dhageysaad maage maba ahaba quraan sixir jam asab saaxir waxa aqra diin ma quraanka fasaxa oo qofka anfacaya la rabaa waxa uu aqraay ma taqaanid waxaas markuu aqriyana qofkii cirkaas uu ka soo cabaado laana asaga jinniga qofkan ku jiray asaga saaxiiba mugta dadka bakaari jooga hantida la isoo xareey u leeyahay waxa kale nin sheekh oo caalim ay sheegay nin nimanka kamida hatta dadka mudarrisiinta cilmiga akhriyo culimada xaasidiin ay ku yihiin jinni soo diraan jinni ku soo diraya laakiin waxay naga qaadi karaan waxba naga ma qaadi karaan hadda korni sheekh oo caalim oo kalsoona wuxuu sheegay hadda korna idin sheegaa malaha tafsiirka markan suuratu qulhiya marayna ima qaanma suuratu inay hada xaqaafi inna meeshaas cilaajka u furay shaqo wadi jiray shaqadii markuu wadi jiray ninkii waa dhintay markuu dhintay wiil uu dhalay oo kitaabana akhrisan jiray meeshii la wareegay soo fariistay kursigii dadkan quraan saarahay markuu shaqadii bilaabay oo asoo kaligiis qolkii fadhiyo jinniga u yimid oo caadi ah layfa war maxaa ahayd hada jinniga aabaha la qaraabo jiro saaxiibka la ahaa aan ahay oo shaqada la wadi jiro dadku u keeni jiro dadku meesha iska ma buuxi jireen mufti dadku waa la keeneen kuwa mingiska iyo humbeelka Soomaar qofa inta loo diro jinni lagu rido suuqa tago wan bari weyn soo gado saas ula ordaa ya marka hawrnaani jinnina marrabo mana wuxuu laba min soo galo jinnigi shaqada aabaha uu haystay meeqa dhaqaalo ka tacbada intaasoo boos intaasoo gawaariya shaqadii inaan ku sii wada hadaa rabtid shuruudii aabaha aan wada galnaan wada galeynaa hadaa diidana banaankan kaaga baxaa hiraani ani adiga waa noo dagaal markaas wuxuu yiri maxaa aabay aad kula heshiis ku ahaydeen wuxuu yiri maalin kasta iyo habeen kasta 3 mar aan liwaadi jiro dabadan ka fuuli jiro 3 mar caadi aan u liwaadi jiro
hadda ma sheegan haddaan nin caalim ii sheegi lahayn nin sheekha ii sheegay oo arrinta wiilkaas ku dhacday aa u sheegay markaasaa uu yidhi ani ma dabada iga fuule haa acuudu billahi min ashaytaan allahu laa ilaaha illa jinni agoo waa kadib wadaadkii oo kabalaana wax alla wixii quraan saarka u fadhiyo war soo qabta wadaadkii waa markaa fiirisidna qofkii caqli ama cilmi leh arrintaas waxaa ka jira nimanka cilaajyada haysta oo aad la yaabaysid dadka u jooga qaar waxaa jira dhaqaalaha ay haystaan madaxda xataa aysan haysan ganacsatada ka dhaqaalo badan arrintaasi marka xiriir waxaa ka dhaxeeya soo aayaddii maahayn wainnahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduun marka xiriiraa ka dhexeeya marka dhegtaa loogu dhibciyo dadku ma jiifaan waa la ogyahay qofkii qof ka jiradana culimo ahlu taqwa oo ilaahay ka cabsato dalabatulcilmi iyo mashaayikha diinka ha u saareen meelahaas uu iska geysanin maaragtay gabdhihiisa iyo islaamihiisa uusan geysanin